kulan looga hadlayay xasilinta ammaanka iyo kahortagga weerarka al-shabaab ayaa maanta ka dhacay magaalada Gaarisa kaasi oo hormuud ka ahaa barasaabka ismaamulka Gaarisa mudane Cali Bunow Qorone madasha ayaa waxaa sidoo kale xaadir ku ahaa madaxa golaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka mudane Aadan Barre Ducaale senatarka ismaamulka Gaarisa Maxamed Yuusuf Xaaji iyo mudanayaasha aqalka baarlamaanka dhexe iyo kuwa golaha deegaanka Gaarisa intii uu kulanka socday ayaa mas'uuliyiintii waxgaradkii iyo culimadii ka hadashay waxay isweydaarsadeen qodobo sida looga hortagi lahaa khatarta dhanka amniga al-shabaab waana kuwan qaar ka mid ah ra'yigii ay soo bandhigeen ana waxaan rabnaa bahorta annaga inaan isbari yeelno kuma jirno oo dawladda ay ka baxday idan ma aaminsanin oo idinka iyo shabaab isku mid baan diin dawladda inaan balka aan saar horta waa kow talabaad inna la hubeeyo yaa lagu noqon baaliyin inna la hubeeyo annaga marka waxaan u baahanahay waxyaalaha dhexdaanada ku jira horta inaad ka saarno aan ka saarno walaal dawladda waxaan ku codsan lahaa in shifto noola hagaajiyo hanoola hagaajiyo shifta waan maqashaan meesha la dhahaa dhuuso mareeb iyo gobollada dhexe Soomaaliya intay isku tashadeen baa waxay la hagaajiyeen wax la dhahaa macuusley Soomaaliya maqlay waa dad macuusley xiran oo qori wad macuusley baa la dhahaa anaga marka hadda runta markaas ku sheegnana askartaanadan Kenya inay dhibato diyaar u maaha waa ninka fikiraya inuu maartay hadda ka daba jaamacad bugo oo maartay waxa la farq adduunka aad ugu weyn halka waa sida u sheegteen inta ayay support gareysay ragga ciidamada u soo shaqeeyay keeyay hobka qoriya loo dhiibay wila loo raacay odayaal caadi ah loo dhiibay hadda tababar ma laha saasta waxa ku yaraateen ragga ciidamada ka soo baxay oo fudo GSU ka soo baxay military police oo ku weynna ah waxaan rabnaa dhaqaalka faraha badan ee meelaha iskaga baxayo security kuwa ayaga in la haleeyo oo naloo badiyo waliba al-shabaab in la dagaalano al-shabaab in la dagaalano Soomaaliya ma nihin annaga inaan midowno Soomaaliya ma nihin dadka al-shabaab laga reebi karo xiseen macallin baa sheegay wiilasheena la qori sidii gobolka dhexe Soomaaliya ragga hub la siin annaga iska celinayna biiba laga celin kari military baa laga celin kari nin ilaahay abuuro laga celin karo ma jirto barasaabka oo kulankan soo xiray ayaa sheegay in dhammaan qodobada la soo bandhigay kuwada ugu muhiimsan ay la wadaagi doonaan dawladda dhexe maanta waxaa isku afgartay in al-shabaab la iska celiyo al-shabaab wayna daliyeysteen dad yar oo waxba aan dheerayn tababarna ma dheero cilmina ma dheero maalna ma dheero hubna ma dheero waxay dheeriin male wayna gabagabaysteen marka waxa la goostay meesha wax cabsaday oo inta tabanka sare ee nimankan ay dhulka haysteen magacooda hata waa laga baqay hadda maanta meesha intuu aan gaarnay inaan la dagaalno iska cilin ayagana gaarsiiyeen ayagana dhaga way u qabaan meel joogaan inta day joogaan meel kale joogaan marka annaka hal ruux oo baqay oo yiri nimankan intuu aan iska dayno waan ka baqaynaa ma jirto marka taas waan meel marinaynaa arinta cilmiga ayadana iyo macallimiinta waa aad baa xoog loo saaray inaan dawladda ka ogaano wixii annaka naga mid ah oo xagga ku jiro marban lagu dacweeyaa annakana waan aqbalnay in annaka xagga ku jiro waxay dhan yihiin ma sheegi karno dawladda inay ogtahay wixii ay nagu dhaanto oo khabar ah oo ay ogto annaka aan ogeyn inay noo sheegto annakana aan ka tashano dadka ayaga isaan uga soo bixin lahayn meesha ayaday ku jiraan haweenaysaa kuwaas markii aan doonayno kuwii nala joogay baa laga yaabaa inay meeshaasi ay u socdaan hadda kuwan meelaha warwareegayeen oo 12 bay ahaayeen 2 kaliya يا Soomaali oo dadkeena dadka kale waxay ka keeneen meel kale ilaa waxay yihiinbo waana caruurteena ka reebnaa inay nimankan ay gelin wixii ku jirnaa ka soo bixin mid kale waxa weeyo inta kali waxa ma tari karto go'aankii maanta aan gaarnay waa inaad faafisay
oo nin walba oo countyda ka tirsan aad u waranto inaan isku tagnay inaan go'aan gaarno nimanka inaan iska celino waxyaalihi badan ay ku taliseen inay NP police reserve-ka la xoojiyo ciidan inaan hagaajisano dadweynaha in la hubeeyo waxay dhanayd wax ma ka soo saarayna marka waxaan rabnaa wixii maanta go'aankii aan gaarnay in dhulkan la galay inaan goosanay inaan diyaar ka ahayn nimankanayto inay annaka dhibkaan ugu sii hayaan waa inaad faafisin oo meel walba aad gaarsiisin midda kale midda annakana laga codsaday inaan maalgelino wixii dhaqdhaqaaq maalkanaga dowladda nationalka aan wax ka doono ayadana taas waan idinku raacaynaa oo wax noo yaallaba male nafteenniba haddiiba uun khatar ay ku suganta iskuullaheeni la helay waxaan iskuullo kale kasii dhisaynaa ama isbitaal kale kasii dhisaynaa male dhaqaalaheena hadda waxaan gelinaynaa inaan nabad ku doonno oo nabaddii aan helno cadowga aan iskaga celno marka maalkeennii meeshaan waan gelinaynaa marka walaal aad baad u mahadsantiin wixii la sheegay maanta waa la qoray mid laga tegay male dad baan u bixinaynaa waxbaa laga soo saari waxaan waxna anfucu noqoni midnimadeennana intan kuma dhammaanayso iyo isku imaashadeenna waa inaan guntanaa kasoo qaybgalayaasha shirkan ayaa waxay ballan qaadeen in si wadajir ah iskaga kaashan doonaan la dagaalanka ururka al-shabaab isagoo kulankan uu imaanayo iyadoo weeraro badan ay ka dhaceen deegaano ka mid ah ismaamulka Gaarisa taasoo horseeday in la xiro xarumihii caafimaadka iyo kuwa waxbarashada. Cabdisalaam Dalmar, RTN TV, magaalada Gaarisa.